Markacadey waa mid ka mid ah magaalooyinka taariikheed ee ugu faca weyn xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta dalka. Waa meel alla ku manaystay dhul hodan ah, cimilo degan, biyo buluugan iyo kuwo wabi oo u suurtageliyay inay noqoto dhul beereed iyo madal kalluumaysi oo waxayn sare taartay nolosha bulshada deegaanka. Meesha ay ku taalo oo ah geeska badda Hindiya iyo wabiyada hoos u sii mara dooxooyinka cagaaran iyo qaab dhismeedka dabiiciga ah, waxay marka ka dhigtay magaalo leh muhiimad dhuleed iyo mid ganacsi oo ilaa qarniyo soo taxneed. Juqraafiyadeedu waa isku dhaf dabiici ah oo ay ku kulmaan badda, ciidda muuxa, dooxooyinka dhulka hoos u sii mara iyo xeebaha dheerdheer ee lagu tilmaamo xariga dahabka ah ee badda. Hordhaca kadib ku soo dhawow muuqaal kooban oo taariikhda Markacadey ka hadlaya. Haddaad nagu cusub tahay juqraafi, ayaad iga daawanaysaan madal tagtada iyo taariikhda Soomaalida lagu soo gudbiyo. Magaaladan oo guriga hore u yaqaaneen Ezena waa magaalo qadiimi ah oo u gogol xaartay ilbaxnimada faca weyn ee Soomaalidu ku faanto. Ezena ama Markacadey waxay ahayd magaalo ganacsi oo xilligii hore ahayd dawlad madax bannaan oo Soomaalidu lahayd. Waxaa lagu xusay buugga Giriigga ah ee la yiraahdo Peribulus of the Erythraean Sea oo ah buug qadiimi ah oo qarnigii koowaad ee miilaadiga la qoray, kaas oo tilmaamay magaalooyin ganacsi oo ku yaala xeebaha Soomaaliya. Qoraagii Carbeed Al-Idriisi wuxuu sheegay in Soomaalidu ay deganaayeen dhulka xeebaha ee u dhaxeeya Ras Xaafuun iyo Marka. Wuxuu sheegay in Marka ay ahayd caasimad Soomaaliyeed, isla markaana ay hoos imaanayeen ku dhawaad 50 tuulo oo ku yaala hareeraha wabiga, isagoo uu ugu yeeray Niilka Muqdisho. Xilliga dhexe ee idinka taariikheynaya Marka waxay ahayd xarun maamul oo muhiim ah oo ka tirsanayd saldanadii Ajuuraan. Saldanadaasi oo ahayd mid ka mid ah boqortooyooyinkii ugu weynaa ee Geeska Afrika soo maray. Saldanada Ajuuraan waxay Marka ka tirinaysay 4 qarni oo toos ah. Meelo badan oo ku dhow Marka waxaa weli laga helaa tirar dhaadheer oo leh Bilal Tombs, kuwaas oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii 15aad xilligii ay Nawaaiti Ajuuraantu maamulayeen Marka. Muqdisho iyo Baraawe waxay ahaayeen saddexda magaalo ee ugu muhiimsan xeebaha bariga Afrika, isla markaana u adeegayay ganacsiga iyo fidinta diinta Islaamka ee xeebaha badweynta Hindiya. Markii saldanadii Ajuuraan awood yaraatay oo ay hoos u dhacday, ayaa agaarka Marka waxaa ka soo baxay koox la oran jiray Al-Amiir. Waxay soo baxeen intii u dhaxaysay 1650 ilaa 1700. Kooxdani waxaa hogaamin jiray nin lagu magacaabi jiray Amiir. Al-Amiir waxay qabsadeen dhulka Marka, waxayna meesha ka saareen Ajuuraan. Dabayaaqadii qarnigii 17aad waxaa gobolada koonfureed ee Soomaaliya ka soo baxay saldanadii Galadi oo xarunteedu ahayd Afgooye. Insha Allah waxaynu ka samayn doonaa barnaamij gaar ah. Saldanadu waxay marar badan isku dayday inay weerarto oo qabsato Marka, laakiin Biyamaal oo deganeed Marka ayaa 2 jeer ka adkaatay. Kacdoonkii Biyamaal oo hore uga soo hadalnay ama dagaalkii Banaadir waxa uu ahaa halgan hubeysan oo ka dhan ahaa gumeystihii Talyaaniga ee Soomaaliya. Dagaalkaasi wuxuu socday intii u dhaxaysay 1896 ilaa 1926, wuxuuna ka curtay gobolada Shabeellada Hoose, Banaadir iyo Shabeellada Dhexe, iyadoo xarunta halgankaasi ahayd Marka iyo Dhanaane. Kacdoonkaas wuxuu la olog yahay dagaalkii Daraawiisheed ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, kaas oo waqooyiga Soomaaliya ku xooganaa maadaama labaduba ahaayeen dagaallo gobonimo doon ah. Dabayaaqadii 1930 Talyaaniga ayaa dhisay dekedda Marka, taasoo noqotay dekedda ugu weyn ee Talyaanigu ku lahaa Soomaaliya. Waxaana waagaa dekedda Marka lagu naanaysi jiray dekedda Mooska, Port of Bananas, maadaama ay ahayd xarun muuska Soomaaliya laga dhoofin jiray. Waayahaas magaalada Marka waxay gashay xilli kobac oo ay dhaqaale xoog leh heshay, sababtuna ahayd ganacsiga dekedda oo ku xirnaa beeraha Janaale iyo magaalada Marka. Sida la wariyay, Marka gudaheeda waxaa ku nool dad kor u dhaafaya 600,000. Waxay leedahay deked nooca Jetty class ah oo la yiraahdo dekedda Marka, Port of Marka, Port de Marka, taasoo leh harbo iyo birtiir biyagal ah oo u dheeraata dhinaca badweynta. Markacadey waa tusaale nool oo muujinaya sida dhulka, cimilada iyo bilicda dabiiciga ah ay u yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee nolosha aadanaha iyo kobaca dhaqaalaha deegaanka. Meesha ay ku taalo waxay siisay muhiimad istiraatiiji ah oo dhinacyo badan leh, mid ganacsi, mid beereed, mid dhaqan, taasoo ilaa maanta ka dhigaysa xarun lagu xusuusto hodannimada dhulka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Juqraafi ayaad igala socotaan, soo dhawaada saaxiib.